hay-adda shaqaalaha Somaliland ayaa howlgalka diiwaangelinta tirinta iyo tayeenta shaqaalaha ka bilowday gobolka Sool waxaana maanta laga daafuray magaalada Laascaanood mashruuca diiwaangelinta shaqaalaha dawladda kaasoo si wada jir ah uga hadleen agaasimaha guud ee hay-adda shaqaalaha maayirka degmada Laascaanood iyo sidoo kale barasaabka gobolka Sool iyagoona ku dheeraaday faa'iidada mashruucan uu leeyahay shaqaalaha dawladda waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan anagu hay-adda shaqaalaha waxaan maanta ka furnay shaqadii hay-adda shaqaalaha hay'ad madax tirsiga tirakoobka shaqaalaha iyo tayeenta anagoo ka soo shaqeynay gobolada Somaliland maanta waxaan u harsanaa gobolka Sool iyo gobolka Sanaag labada ay maanta soo bilaabantay anagu waxaan qaybtii gobolka Sool ka bilaabisay hawsha arintaas aan ka bilownay gobolka Sool oo ka daafurnay hay'adda shaqaaluhu waxay wadaa shaqada tirakoobka shaqaalaha dawladda waxa la socdo tayeenta shaqaalaha taa macnaheedu ah qofka shaqaalaha ah ee aqoontiisu aanay gaarsiin heer ku shaqeeyo in horumar lagu sameeyo aqoontiisa kor loo qaado qofka darajadiisu dhiman tahay ee for example qof ah oo ku shaqeynaya oo kale waxa loo gudbin doonaa halkii lahaa oo xaq u lahaa waxa halkan lagu daafuraya mashruucii shaqaalaha gobolka Sool hawshiisa indiina ku aragtaan si fiican baa u socotaa si fiican baa la isku jeegareynayaa oo la isu diiwaan gelinayaa tan macnaheedu ma aha warar badan baa jiro dadkii waxba la goynayaa ma aha waxa weeye shaqaalaha aqoontooda in kor loo qaado in qof walba mustawuu joogo waxa laga yaabaa nin cilmigiisu yahay maanta dhiig ku shaqeynayo nin cilmigiisu dhiig yahayna inuu ay ku shaqeynayo taasi waa cadaalad baa la sugayaa nin walba wixii hooyadii yaabiin bareenaya wuxuu soo bartay baa la sugayaa ay sheegeen maayirka degmada Laascaanood iyo agaasimaha guud ee hay'adda shaqaaluhu maanta ay bisha 24 tahay bishii saddexaad ee 2018 waxaan ku suganahay gobolka Sool xaruntiisa Laascaanood waxaan daafurnay ama bilaabmay madax taabashada shaqaalaha kulli warka waa haysaan baan u maleynayaa waxay ku saleysan tahay saddex qodob oo kaliya in la helo tirada rasmiga ah ee mushaarka qaadata ee dalka oo halka laga saaro wixii caagil ah loo bixiyay marka labaadna in la sugo mataqaanaa ay shaqaalaha goobta jooga inay isleeyihiin magacyadoodu iyo dadka shaqeynaya inay yihiin kuwii mushaarka uu soo baxay yihiin iyo in kale si halkan looga saaro cid magacooda mushaar ku soo baxay ama aan helin ama cid kale la siiyo qodobka saddexaadna waxa weeye in lagu saleeyo mataqaanaa aqoonta shaqaalaha kor loo soo qaado waxayna heli doonaan shaqaaluhu sida gobolada kaleba tababar xagga maxadku bixiyo ama ha noqoto xarunta guud ee Hargeysa loo diro ha lagu siiyo Samiir Saciid Bilabulsha TV Laascaanood.